maanta waxaan kula wadaagi doonaa 9 talaabo oo ku sahlaya inaad si fudud u barato xirfadda graphic design-ka iyo waliba roadmap-kii aad u mari lahayd skill-kan baahida weyn looga qabo suuq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada sida ka dambe magacaygu waa Coach Maxamed Cabdullaahi. badanka ardayda jecel inay bartaan xirfadda loo yaqaan graphic design-ka waxa laga yaabaa inay ku dawaqaan meesha ay ka bilaabi lahaayeen. Dadna waxa laga kastaa arday muddo aad u badan baranaysay xirfaddan balse aan ilaa hadda aan ka gaadhin wax guula ama wax horumar ah aan ka samayn barashada xirfadda graphic design-ka. Roadmap-kan wuxuu ka caawinayaa waa 9 step oo mid walba laga doonayo inaad qaado marka aad doonayso inaad bilowdo xirfadda graphic design-ka kaasoo waxa weeyaan ku fududeynaya inaad si professional ama aad waxa weeyaan aqoon fiican aad u yeelato xirfadda loo yaqaano graphic design-ka. Marka 9 qodob intaan guda gelin waxa xusid mudan hadii aad ku cusub tahay channel-kan fadlan subscribe saar channel-keena sidoo kale to hadaad hore ugu jirtayna waa inaad like gareysaa si uu markaas waxa weeyaan algorithm-ka YouTube-ku markaas uu dad badan ugu gaadho. Waxa iyadana xusaya dhammaan waxa weeyaan barashada xirfadda loo yaqaano graphic design-ka waxaad ka helaysaa koorsooyinka muhiimka ah ee aynu xusi doono ee laga doonayo qofku waxa weeyaan inuu bartaa waa barteena YouTube-ka iyagoo aad ku baranayso 100% bilaash ah waayo saad ogsoontiin waxa weeyaan barteena akademiyada guud ahaanteena waxaynu u bedelnay waxa weeyaan meel non profit ah ama aan lacag laga sameynaynin aan isla markaa koorsooyin aan la iibinaynin isla markaa xitaa daawashada muuqaalada waxaanu ka xidhnay waxa weeyaan in artiska iyo xayisiinta lagu furo waxa weeyaan markaas aynu ka sameyn kareyno dakhli dhaqaale marka guud ahaan waa non profit kaliya waxa laga doonayaa markaa waxa weeyaan ama ardayda Soomaaliyeed aanu ka doonaa inay markaa skills-kooda ay ku horumariyaan oo wax weeyaan markaa goobtan ay wax ka bartaan waxaan eegi doonaa hadaba 9 qodob waxaan raacin doonaa hal qodob isagana muhiim ah oo qof kasto xirfadda baranaya ama qof kasto xirfaddu doono baranaya inta badan oo la kulmo kaasoo loo yaqaano burnout kaasoo sababaya qofku markaa waxa weeyaan inuu niyad jabo inuu daalo ama inuu waxa weeyaan ay ku adkaato marka uu wax baranayo marka qodobka laftiisa ayaa xagga dambe isagana ku baran doonaa laakiin 9 qodob oo qodob walba waxa weeyaan markaa dul istaagayno ayuu marka hore aynu ku horeyn doonaa waxa iyadana xusid mudan fadlan roadmap-ka oo faahfaahsan waxaad kala degaysaa waa PDF-ka link-ka hoose aan idiin soo dhigay marka isagoo summary fiican aan ku sameynay oo la soo koobay si marka waxa weeyaan marar badan aad waxa weeyaan levels-ka ka kooban yahay waxa weeyaan roadmap-keenan aad dib aad u eegto marka qasama inaad mar walba video aad ku soo noqoto video-ga marka hore dhameyso si fiican u daawo kadib waxaad sameyn doontaa waxa weeyaan maxaa loo yaqaanayay PDF-kaasi qaado haddii ku suurtagal tahay marka inaad daabacataa oo marka gidaar ama meel aad waxa weeyaan aad inta badan aad ka arkayso aad ku dhajisataa haddaba iyo golo waxa weeyaan inuu bilowno waxa weeyaan level-ka ama step-ka koowaad ee laga doonayo qofka baranaya xirfadda loo yaqaan graphic design-ka kadinka ugu horeysay uu ka galayo aynu tagno hadaba shaashada computer-keena waxaan markaa halkan ku haysanaa waxa weeyaan waa roadmap-ka rasmiga ee aanu marayno kaasoo ka kooban waxa weeyaan markaa levels baan ugu yeedhanaa kaasoo ka kooban waxa weeyaan 9 level markaa mid walba waxa weeyaan inside-kiisa ayaynu sii guda geli doonaa waxa ku jira si markaasi waxa weeyaan aynu aragno inagoo ka bilaawayna level-keena koowaad oo loo yaqaano markaa qodobka ugu horeeya ee laga doonayo inaad bilowdo ama aad barato level-keena ugu horeeya haddaynu eegno waxa loo yaqaanaa markaa waa commitment and setup waa level-ka koowaad ee laga doonayo qofka doonaya xirfadda loo yaqaan graphic design-ku inuu ka bilaabo marka level-kan koowaad waxaan kaga warramaynaa qodobka ugu horeeya ee halkan inoo yaala waxa weeyaan commitment and setup-ka khuseynaya qofku marka ugu horeyn waa inuu la yimaado wax loo yaqaan commitment waa inuu go'aansadaa inuu xirfaddan si toos ah oo u bilaabayo marka lama doonayo marka commitment-ka qaadanayso waa in go'aan rasmiya oo waxa weeyaan gudahaaga ka yimid aad qaadan kareysaa kaasoo ku salaysan xirfaddan faa'iidada iyo ujeedada aad ka doonayso marka aad barato waxaad doonaysaa aad ku shaqaysato oo aad shaqo aad ku hesho waxaad doonaysaa in freelancer aad ku noqoto waxaad doonaysaa inaad business-kaaga aad ku horumariso marka deeply commitment-iga waa inuu kaa go'an yahay kaasoo waxa weeyaan aad ku cadaynayso yacni inaad go'aansato marka hore inaad qaadanayso xirfaddan isla markaas sababtaad u qaadanayso xirfaddanna aad waxa weeyaan iyadana ay ku caday marka qodobka ugu horeeya ee level-keena koowaad aynu qaadanno waa inaad la timaadaa marka commitment qodobka labaad waa inaad haysataa wax loo yaqaan toolska marka toolska u baahanta waxa kamid ah waa inaad haysataa computer-kii marka computer waxa weeyaan waa muhiim marka ama Mac version ha noqdo ama Windows ha noqdo waa laasim inaad marka waxa weeyaan computer waliba fiican oo iska xijin kara xirfadda loo yaqaan graphic design-ka toolskan u baahan oo arki doonaayo waa inaad haysataa marka haddaad mobile iyo aad haysato leedahay mobile ku shaqayn karaya su'aasha kooban waxa weeyaan yes marka qaar waa isticmaal kartaa laakiin professional hadda doonayso xirfaddan aad u barato oo marka ama business-kaaga u isticmaal ama dhaqaale ka samee ama waxa weeyaan skill-kaaga yacni aad leedahay ku darso mobile ma ku baran karaysid waxyaabaha yar basic ah mobile loogu talagalay marka qodobka labaad commitment-ka soo iskalaya waa in toolskii loogu talagalay haysataa sida khaasatan
computer dhammaystiran oo awood u leh qodobka saddexaad ee isagana muhiimka ah ee community-ga soo iskaliya waxa weeyaan waa inaad haysato wax loo yaqaan waa time waqti inaad haysataa waa ka qayb waayo dad badan waxaad arkaysaa markaa xirfadan ama kuwa kala jecel balse waxa weeyaan waqtigoodu uu aad u cidhiidh yahay marka adigoo labada gelin baa ma shaqaynaya ama busy ku jira oo waqti aan rasmi aan helahaynin waxa weeyaan xirfadan si laab la kaca uma bilaabi karaysi qof kastaana wayna ogsoonataa oo waqti aan haysanin ma jiro waqtigu qasama in 2 3 4 5 saacadood 10 saacadood haysta maaye laba gelin xitaa hadaad shaqaynayso waxa la helaysaa waxa weeyaan waqti kooban oo aad xirfadan aad ku bilaabi karto tusaale ahaan waqtiyada dadku aanay soo kicin subax dad goor kacdo oo bilaabi karaysaa marka waliba markaad bilaabaysana time yaro kooban oo u qorshaysay oo waqti la yaqaano ah oo xilli bilaabmaya waa inaad haysataa marka ma aha time badan inaad time fara badan iska haysato ma aha qof walba oo time ama ha yaraada ama ha badnaada horta waa uu bilaabi karaya muddada ay ku qaadanayso baa kala duwanaanaya timeka aad haysantaa waa inaad bixisaa oo aad qeexatada okay saacad haday tahay 30 daqiiqo haday tahay 2 saacadood 3 saac intii ay tahay awoodaadu ay tahay haleelisid ogtahay waa inaad waxa weeyaan aad cayintaa sidoo kale to blogga ama xilliga ay ku beegmisana waa inaad ku caddahay ma subaxaad baranaysaa ma duhurkaad baranaysaa ma habeenkii xilliga kugu fiican marka waa inaanad marba xilli aanad la soo boodboodin qodobka saddexaad ee commitmentiga aynu hoos gelinay waxa weeyaan qofku waa inuu haystaa waqtiga wax ku baranaya kaasoo markaa uu qoondeeyey oo uu gooyey waxbarashada uu ku baranayo xirfadda loo yaqaan graphic design-ka saacad 2 saacadood 3 saacadood iyo intii kale waxa weeyaan markaasi uu ka sii badin karayo qodobka afraad waxa weeyaan isagana waa inaad haysataa markaa workspace-ka environment-ka aad ku baran lahayd waxa weeyaan xirfadda loo yaqaan graphic design-ka isagana waa inaad haysataa marka meel buuq badan iyo meel shaqo badan ka socoto iyo meel waxa weeyaan family-ga dadkaagu ay waxa weeyaan ay kugu sameynayaan mashquulin badan xirfadda kuma baran karaysi xilliga aad waqtiga aad baranayso ee soo go'aaminayso waa inaad markaa isagana aad meesha aad ku baranaysana workspace aad ku shaqaynaysaa ama environment aad ku shaqaynaysana waa inaad go'aamisaa marka environment waxa hoos imanaya location ku habboon waxbarashada waxaa hoos imanaya in waxa weeyaan habka iyo toolska aad ku fadhiisanaysa ay yihiin qaar waxa weeyaan markaa ku caawinaya oo marba waxa weeyaan dhabar xanuun ama aan kugu keenin marba waxa weeyaan jeejeesa badan aan marka miis kursi ku habboon ugu yaraan waa inaad haysataa iftiinka iyo light kugu habboonna saas la mid ah marka waxa weeyaan waa inaad u haysataa marka levelkeena koobaad oo noqonaya levelka entry-ga ee laga soo galayo waa inaad marka waxa weeyaan qodobadaasi aad haysataa waxaan qodobayn doonaa haddaba levelkan time intee leeg baad u baahan tahay muddo maxaan u baahanahay inteen leeg markaa levelkan aan ku baran karaya levelkan waxay ku xidhan tahay markaa timeka aad haysato iyo habka aad waxa weeyaan aad doonayso aad xirfaddan u barayso laakiin commitmentiga inaad qaataa si kooban haddaan usoo qaato waxaa ka badan si marka loo eego one day baa ka badan oo waxa weeyaan just one day ayaad go'aansan karaysaa waxa weeyaan skillkan aad bilaabi karayso haddii laakiin maximum aan waxa weeyaan aan badiyo waxaa laga yaabaa 2 ilaa 3 week ba markaa iska dheh haddaad aad tiraahdo 7 dayskan waxaan qorsheynaya waxa weeyaan ugu horreyn markaa qodobadii muhiimka ah ma haystaa computer marka computerkaaga haddaad haysan waa inaad qasab waxa weeyaan computer soo iibsataa workspace-kii markaad ku shaqayn lahaydna waxa weeyaan waa inaad markaasi aad diyaarisaa allahumma salli calaa time-kii markaa aad go'aamisay masalaada subaxba isagana markaa waa inaad qorto marka guud ahaan waxaa kaa badan waxa weeye one day ilaa iyo 7 days marka kolba waxa weeyaan intii aad waxa weeyaan aad kaga fikri karayso lama doonayo inaad waxa weeyaan laab la kac la soo baxdo oo taada berri baan bilaabaya fadhiiso fikir qodobadan soo sheegnay ugu horreyn commitment ma qaadatay laba ma haysataa toolska loogu talagalay computer haddaad computer haysan xirfadan si official ma bilaabi karaysid raadso ka shaqee ka howlgal qaabkeeda computer ku soo lahayd saddex timekaaga haddaad subax shaqo tagto salaada subax waad kici karaysaa haddii kale duhurka hurtada iska dayn karaysaa hadda labada gelin waxaad ka shaqeeyaan la hadlayaa haddii kale waxa weeyaan habeenkii inkastoo habeenkii late timerka ay tahay qofku waxa weeyaan energy-ga dhan maalintii uu soo gubay ku fiican tahay waxa weeyaan xagga hore aad ka shaqo laakiin hadda from 4 am hadda ka go'aantay weeyaan 4 subaxnimo ama 5 subaxnimo hadda kacdo from 7 shaqada intaad gelin aad wadi karaysaa haddii se aad waxa weeyaan aad free time aad haysato oo arday imika qalin jabiyay ama imika wax baranaya aad tahay waqti aad u badan baad markaad haysataa marka ugu horreyn qodobka koobaad waa inaad go'aamisaa waxa weeyaan commitmentigaaga levelka koobaad aynu ka bilaabaynaa kaasi ayuu markaasi u noqonaya aynu eegno markaa levelkeena labaad ee level 2 level 2ga markaynu waxa weeyaan furno level 2ga isaga waa inaad taqaana waxa loo yaqaano computer and digital basics waa inaad taqaana marka computer and digital basics waxaan uga jeednaa ugu horreyn maadaama xirfadan aad doonayso graphic design inaad barato waxa muhiim ah aasaaska computerka inaad wax si fiican aad u taqaano
oo waxa weeyaan waxyaabaha basic ah aanay kugu soo istaagin maxaa ka mid ah ugu horeyn computerkaaga waa inaad taqaanaa basic computer operations qaabka uu shaqeynayo sida computerka fileska loo furto sida waxa weeyaan windowska ama mac hadaad isticmaalayso loo soo shido sida loo organize gareeyo folderadaada keyboard shortcutska basic ah waxyaabaha basic ah computerka marka la shido waa inaan waxa weeyaan wax kugu cusub oo star menu-ga waxaan maxay yihiin waa inaad noqonin qof computerkii bartay waa inaad tahay ugu horeyn marka levelka hore markaa soo go'aansatay ee levelkan imanayso basic computerka waa inaad taqaanaa qodobka labaad waa inaad haysataa markaa isagana aad taqaanaa waxa loo yaqaano internet waxa weeyaan qaabka u shaqeynayso isla markaana internet fiican waa inuu markaa guriga ama goobta aad wax ku baranaysaa uu kugu xidhay ama cidda kale waxa weeyaan aad markaa meesheeda aad tegi karto xitaa haddaan gurigaaga internet fiican ku xidhnayn waxa weeyaan markaa cafeteriada waa tegi karaysaa laakiin waxaa muhiima inaad taqaano internetku qaabka u shaqeeyo sababta waxa weeyaan marar badan ba waxa weeyaan lagu oranayaa software la soo deg oo sababaha waxa weeyaan inta badan dadku dhalinyarta ee bilaabaysa koorsooyinka graphic designka waxa weeyaan awood badan uma laha inay lacag ku bixiyaan koorsooyinka ay iibsadaan marka maadaama iyo soo kale software-rada marka internetka markaad taqaano qaabka u shaqeynayo sida waxa weeyaan maxaa loo yaqaanaa loola soo download garaysto waxa weeyaan loo download garaysto si wax loo upload gareeyo iyo basic internetka oo dhan internet aad haysato waxay kuu samaxaysaa markaa toolska aad u baahan doonto xitaa kuwa lacagta ah inaad si fudud u heli karto marka qodobka labaad waa inaad internetka taqaanaa isla markaana aad haysataa qodobka saddexaad waa inaad taqaanaa qaabka wax weyn software-da loogu shubto iyo qaabka looga saaro marka xirfadda graphic design ma bilaabi karaysaa adigoo software-ba computer ku shubi karaan marka marba hebel igu soo shubad oranaysa marka si aad taa uga gudubto oo cid uga baahan basic-ga qaabka software loogu shubayo qaabka looga saarayo haddaad u baahataba iyo qaabka wax weyn maadaama software illegal aad isticmaalayso qaabka loo karaagaranay hawlaha yar waxa weeyaan waa in ayagana aad taqaanaa deedna qodobka afraad kadib intaad xirfadda toos u gudagelin oo toolska iyo software-rada aanad bilaabin waa inaad markaasi horta aad baadha xirfadda loo yaqaano graphic design-ku maxay faa'iido leedahay halkay ka shaqaysaa qaabkeed aad ugu doonaysa inaad ugu shaqaysato meesha iyo goobta aad ku sugan tahay iyada lafteedu waxa weeyaan sidee baa looga shaqaystaa marka qodobadaas waxa weeyaan waa muhiim haddaba level 2 inteed ku baran karaysaa baan isweydiinayna haddaan doonayso markaa level 2 waxa weeyaan inaad barato muddada markasta timekii aad xagga hore kusoo qoondaysay ayay ku xidhan tahay qofka waxa laga yaabaa computerka aan weligii iyo alihii aan waxba uga bilaabmayn hadday kaaga bilaaban yihiin level 2ga waad ignore garanaysaa level 3ga ayaa markaa aad gudageli doontaa laakiin yacni waad ignore garanaysaa videoga ka gudub maaha laakiin waxa weeyaan qodobadan oo read aad wada haysataa waad dhegaysanaysaa qofka se computerka aan hore u aqoonin ee maanta go'aansaday inuu xirfaddan u bilaabaa qodobka ugu horreyn ku xidhnaa waa computerka inuu yaqaanee waxa laga yaabaa basic computerka inaad ku soo fahanto plus internetkiisa sida software-da loogu shubanayo wuxuu qodobadan wax laga yaabaa markaa qofka ku xidhnaanaysaa qofka weligaa lihaan bilaabin laakiin waqti badan haysta dadaal badan gelinaya xirfaddan usoo go'aya waxa laga yaabaa 1 ilaa 2 months gudihii waxa weeyaan inuu xirfaddaasi basic computerka waxa weeyaan si fiican ugu soo baxo waxaan sheegayaa qofka markaa doonaya in xirfaddan ka go'an tahay waqtina u haya laakiin waxa laga yaabaa qofka waxa weeyaan iska timekiisu iska busy ku jira dadkii hore weliba aan computer aan soo baran ama computer ba aan garanahaynin ama si wax loogu shubto aan garanahaynin waxa laga yaabaa maybe markaa inay ku qaadato 3 to 6 months marka qofka ayaa go'aaminaya ma waqti haddaad hayso faankaagu fiican yahay saacado badan aad bixinayso bil baad gebigiisa ku baran karaysa wax kuu diidaya ma jira gebiga computerka basicgiisa computerka siduu u shaqaynayo raamka cpu noocyada kale duwan uu ka kooban yahay sida software-diisa loogu shubanayo sida looga saarayo internetka qaabka u shaqeeyo waxaas waxay 1 month baa kaa badan laakiin marka 5 saacadood iyo wixii ka badan aad maalintii aad gelinayso haddii kale bil ilaa 2 bilood is okay haddii time badan aad haysan 3 bilood ilaa 6 bilood basican waad ku baran karaysaa waxaa iyadana muhiim markaa waxa weeyaan qodobka loo yaqaano maxaa la yidhahdaaye graphic design-ka inaad isagana aad bal daraasad yaroo kooban waxa uu yahay siduu u shaqaynayo inaad isagana aad ka sii samayso marka level 2 oo noqonaya levelka labaad ee isagana qofku ka soo gelayo aan computerka ama digital aan wax badan aan ka garanahaynin muddada uu baahan yahay iyo toolska ugu horeeya ka bilaabaya waxaan waa level 2ga inuu basic computerka waxa weeyaan markaasi uu soo barto waxaan gudagali doonaa level 3 afwan level 1kii waan ka soo gudubnay basic qof computerka uu soo bartay meesha markaa ay u dhimatay qofka graphic design-ka doonaya inuu barta ay ka bilaabayso waxa weeyaan qofka basic computerka yaqaanayna laga doonayo markaa inuu ka bilaabaa waa qodobka halka inoo yaala oo noqonaysa waa inaad markaa waxa weeyaan mastering the core toolska muhiimka ah ee aad u baahan tahay markaa waxa weeyaan waa inaad barato xirfaddan toolskeedu aad buu badan yahay laakiin leefaladaynu kala duwanaa meesha ugu horeysa eenu ka bilaabayno xirfadda ama toolska ugu horeeya lagaa doonay inaad waxa weeyaan aad ku barataa
ugu horeyn waa software-ka loo yaqaano Adobe Photoshop waa meesha ugu horeysa ee aan xirfadan dadka kula taliyo inay ka bilaabaan arday badan baa meelaha basic-ga ay ku carra Canva iyo waxyaabaha kale basic-ga uma baahnad meelahaas aad waqti badan ku soo lumiso xirfadan hadday ka go'an tahay toolska ugu horeeyadu baahan tahay waa inaad barataa shirkadda Adobe product-geeda waliba software-ka koowaad ee loo yaqaano Adobe Photoshop software-ka loo yaqaano Adobe Photoshop-ka maxaa lagu qabtaa software-kan shaqooyin badan buu qabtaa laakiin graphic design-ka waa aasaaska koowaad software-ka u ah marka inta ugu badan sawirado kale lagu edit gareeyaa sawiradu aad marka professional ugu yahay sawirada editing-kooda manipulation wax loo yaqaano marka guud ahaan software-ka loo yaqaano Adobe Photoshop uma baahnid meel kale aad ka barato just waxa tagaysa waxa weeyaan barteena akademiyada ayaa waxa markaa leeyahay ka diyaariyo waxa weeyaan course dhameystiran oo soconaya waxa weeyaan 15 days ka markaa course-ka hadda soo qaadato barteena YouTube ku jira wax lacag laga qaadayo Photoshop waxa weeyaan si fiican baad u baranaysaa course kale waa iska sii raacsan kartaa dad u baahatay laakiin waxa weeyaan waa kugu filnaanaya way course-ka maxaa niri meesha ugu horeeya ee aad ka bilaabaysaa waa software-ka loo yaqaano Adobe Photoshop software-ka labaad ee raacaya markaa waxa weeyaan waa software-ka loo yaqaano Adobe Illustrator I think Adobe Illustrator laftiisuna course dhameystiran baa kugu jira oo 12 days inuu soconaya isagana aan filayaa barteena markaa waxa weeyaan akademiyada loo yaqaano markaa aad ku qorto sida academy hadii markaa cafanaad meel kale ka dawlasa sheegaya Adobe Illustrator waa software-ka labaad ee isagana laga doonayo inaad barataa isaga inta badan isagana waxa loogu talagalay samaynta waxa loo yaqaano vector imageska Photoshop waxa loogu talagalay waxa loo yaqaano pixel imageska casharada pixel vector waxa waxa weeyaan koorsooyinka bilaashka ee ku jira barteena YouTube-ka ayaad ku baranaysaa software-kaaga labaad ee la doonayo waqti aad ku bixisaa waa software-ka loo yaqaano Adobe Illustrator software-ka saddexaad waxa loo yaqaano Adobe InDesign publications-ka ka loogu talagalay Adobe InDesign-ku waa software isagana muhiima laakiin waa optional publications-ka loogu talagalay buugaagta waaweyn laakiin waxa weeyaan waa optional qofku waxa weeyaan aan labada hore maybe way ku filaanayaan xirfadda graphic design-ka laakiin isaga laftiisu waa muhiim qofka la doonayo tools dhameystiran inuu barto oo waayo waxa laga yaabaa marka qalin buugaago kale lagu keeno adoo dadna graphic design ta tare buugaagta ma sameyn karaan waxa laga yaabaa marka inaad wax weeyaan aqoontu ka kala dhimantay marka Adobe InDesign waa laga maarmaan يعني waxa weeyaan Adobe Photoshop Adobe Illustrator graphic design way ku filan yihiin laakiin Adobe InDesign waa qasab isagana marka saddexdu saas kala horeynaya Photoshop ka bilow Adobe Illustrator ku xigsi Adobe InDesign ku xigsi saddexda course oo bilaasha oo dhameystirana barteena YouTube ka keenaysa fadlan booqo sida academy bartay ku leedahay wax weeyaan YouTube-ka marka qaybta wax weeyaan playlist-ka tag course kasta markaa siisa ayuu markaa kugu soo marka way kala horeynayaan kan wax weeyaan waa 1 kan wax weeyaan waa 2 kan wax noqonaya markaa waa 3 qaabkaas markaa kugu kala horeynayaan way muddada hadaynu qiimayno time haddaan u baahan waxa weeyaan markaa barashadooda saddexdooda inaan bilaabo intay ugu qaadan karaysaa markasta waxay ku xidhnaanaysaa markaa time-ka aad haysato markaa markasta aan ku soo celcelinaya time-ka haysta ku xidhnaanaysaa laakiin average-ka markaan qiimeynayo ardayda inta badan bartay koorsooyinkana aan eegayo horta koorsku 15 cisho ku base garaysan yahay midna 12 cisho ka kala I think 10 cisho ku base garaysan yahay haddii markaa total la isku soo ururiyo مثلا Photoshop oo kale 15 cisho maadaama ku base garaysan yahay qofka 5 saacadood maalintii geliya 15 ka cisho wax fiican buu kaga fahmaya Photoshop-kana waxa weeyaan intii loogu talagalay ama looga baahnaa si fiican buu fahmaya marka haddaan ku sii darno tusaale Photoshop oo kale dhahdo waa qofka markaa maalintii 5 saacadood gelinaya waxa laga yaabaa 20 days in waxa weeyaan markaas ay ku qaadato Photoshop-ka plus marka waxaynu geenaynaa Adobe Illustrator-ka isagana waxa laga yaabaa markaa in waxa weeyaan isagana 30 days ay ku qaadato waa marka dadka aan dadajinaya sheegaya ee waqti fiican haya ee si degdeg u sameynaya Adobe InDesign-ka 10 days to 15 days baa ka badan marka waan iska soo koobinaa mesela 10 days baan leeyahay guud ahaan halka waxaad ka arkaysaa marka waxa weeyaan 60 days baa ku filan qofka waxa weeyaan waqti fiican skill-kan u haya juhdina haya ee doonaya markaasi in waxa weeyaan uu kamera dhaliyo oo markaasi degdeg u barto marka waa dadka fahankoodu fiican yahay waqti badan haysta oo aan mashquul badan aan ahayn waxa laga yaabaa marka qofka kale waxa laga yaabaa marka 6 days ka times 3 marka ay noqoto 90 days baa laga yaabaa marka qofka aadka busy-ga ah inuu marka waxa weeyaan uu kaga midha keeno 9 cisho ayaa laga yaabaa marka 3 bilood oo bil walba Photoshop-ka 1 month buu siinaya practicalkiisa ku celcelinaya iska jiito bisha labada Adobe Illustrator ka saddexaad marka average-ka waa 60 cisho ilaa 9 cisho waa inta dadka ay ka go'an tahay in xirfadda bartaan ay ku qaadan karayso laakiin dadka qaar iska tacbaanka ah ee xirfadiina doonaya in waxa weeyaan juhdigoodii aan yacni ama waqtigooda ku yari iyagoo xitaa time-kooda laakiin ku yar maalintii mesela saacad wax ka yar bixinaya waxa laga yaabaa markaa inay ku qaadato almost 6 months iyo wixii ka badan 6 months
ilaa iyo 1 year way ku qaadan karaysaa xirfadaas marka aynu ka barto laakiin waxaan markasta ku taliyaa xirfadda haddaad bilaabayso waqti fiican haystaa ugu yaraan 3 saacadood waa inaad haystaa 3 saacadood marka waxa laga yaabaa inaad markaa muddo kooban oo kugu filan aad waxa weeyaan aad ku dhamayn karayso qasab ma aha muddooyinkan aan asteeyay inaad waxa weeyaan aad ku dhaqantaa waxay ku xidhnaanaysaa habka fikirkaaga iyo timekaaga mararka qaar baad gebigooda baad ku dhamayn karaysaa bil buura 45 cisho bil laakiin mararka qaar bay kugu badanaysaa 2 sano laakiin waxaa muhiim ah commitment-ka markaad qaadato inaad ku dadaasho inaad waxa weeyaan hore aad u dhamaystirto levelka saddexaad waxa laga doonayaa marka waxa weeyaan saddexda software Adobe Photoshop Adobe Illustrator iyo Adobe InDesign sida ay u kala horeeyaan inaad u barato bartan YouTube-kan ay ku jiraan casharada YouTube-ka haddaad qaadato dhamaysato waxaa kula talinaya markaa mar kasta inaad waxa weeyaan casharo kale aad sii raadiso oo waayo tusaale ahaan haddii maanta cashar layerisa uu kugu soo yara adkaado oona fahmin gooni u sii baadh markaa qasama inaad akademiyada kaliya ku eegaatada YouTube-ka casharada bilaashka focus garee YouTube-ka markaa kusii qor markaa cashar kastoo halkan kaaga soo horbaxa ama shay kastoo ood ka fikirto oo casharada ku yara adkaada gooni baad markaa iyagana aad waxa weeyaan aad u sii baadhi karaysaa markaa kaasina waxa weeyaan waa levelkeena saddexaad oo isagana muhiim ay tahay inaad waxa weeyaan markaad xirfadan aad bilaabayso waana ka ugu muhiimsan barta ugu horeysa ee laga soo galo labadii hore hordhac bay ahaayeen laakiin waa mastering the core tools inaad markaa waxa weeyaan aad si fiican aad u fahanto saddexda software way levelka afraad oo noqonaya isagana waxa weeyaan markaa level muhiima levelkan wuxuu ka warramaya wax loo yaqaano markaa learning by the copy and the history the designers kani levelkan ujeedka laga doonaya wuxuu noqonayaa tusaale ahaan toolska software-ada Photoshop Adobe Illustrator iyo InDesign markaa si fiican levelkii hore aad ugu soo baratay ee aad soo fahantay ama xitaa aad tahay arday hore u bartay oo software-adaasi yaqaana level 4 waa uu kasii bilaabi karaya haddaad hore koorsooyinka u qaadatay ood weli aad doonayso roadmapka inaad ku dhaqanto weli waa kuu furan yahay level 4 waxa uu dhigayaa markaad xirfadda graphic design-ka aad barato uma baahnid inaad waxa weeyaan adigu aad curin cusub la timaado dadka ku oranaya inuu software-da waan bartay laakiin sida wax loo design gareynayo iyo design-ku wuxuu yahay iyo color-rada wixii baa iskaga qasan yes oo iskaga qasan yihiin because waxa weeyaan fresh baa tahay hadda levelka hore software-iska iyo tools-ka baad baratay sida background-ka looga goynayo sida shape-ka loo soo qaadanayo sida text loo qorayo option-ada tools-ka inaad barato baa muhiim ah yahay laakiin levelkan wuxuu ku dhigaya marka waxa weeyaan inaad marka waxa weeyaan waa inaad guud ahaantiisa wuxuu ku soo ururayaa levelkan adigu curin lama iman karaysid wax cusubna ma generate garan karaysid marka waa inaad dadka kale ee designerska ay waxa ay sameeyaan waa inaad isku daydaa inaad sidiisa u samayso marka meelaha tigis waxa kamid ah platformada social media kuwada ugu muhiimsan inta badan waxa weeyaan waxa kamid ah marka waa Pinterest marka Pinterest waxa weeyaan website waxa kamid ah Behance oo ay leedahay marka shirkadda loo yaqaano Adobe iskale Dribble qolooyinka UI-ga marka qodobadaas ay ku jiraan laakiin Pinterest-ka iyo waxa weeyaan Behance-ka waa labada meelood ugu sii waaweyn waa inaad markaas si joogtaa social media-haasi aad u booqataa applications-kooda aad la soo degtaa kadib aad ku qortaa designers ka traasa مثلا waxaad ku qoraysaa poster design waxaad ku qoraysaa logo design waxaad ku qoraysaa maxaa loo yaqaanaa packaging kolba designerska wax allaaliyo wixii aad doonto baad ku qoraysaa adigoo basic ka bilaa social media design kadib dadka designerska designada quruxda badan ee waxyaabaha kuu soo dhigaan baad daawanaysaa just daawo deedna kadib waxaad samaysaa practical maadaama tools kuu fudud yahay waa inaad markaa aad dib u samaysaa oo aad practical aad ku samaysaa dadkii hore wixii ay sameeyeen taas markaa waxay ka caawinaysaa horta one platformski baa tagtay waa Pinterest iyo saddexdaas sheeganaya kuwa kale marka xitaa Google-ka Instagram waa isticmaali karaysaa designada iyo ideyada xitaa laamida markaad mariso billboardada ku dhigan signboardada gidaarada gawaadhida qaabka loo design gareeyay social media posterada ka soo horbaxaya design kastood ka hesho qaado save garayso isku day inaad samayso taas waxay ka caawinaysaa marka weeyaan maskaxdaada iyo garaadkaaga inuu creativity-giisu uu kordho oo marka dadka kala duwan designerska sameynayaan maskaxdaada ku save garaysnaanaysaa kadib marka waxaad noqonaysaa qof marka fikra badan maskaxdiisa ay ka dhex guuxayaan oo hayaan waxayna aad u muhiima markaad practical badan samayso ee Dribble aad gasho ee waxa weeyaan aad dadka kale waxa design garanaya isku day inaad ka daba design garayso inaad iyadana marka waxa weeyaan aad akhrido waxyaabaha loo yaqaano marka casharada loo yaqaano theory-gu waa muhiim casharada marka theory-ga aad bay muhiim u tahay marka hadday tahay wax weyn articles wada akhriyi karaysaa hadday tahay ChatGPT oo kale su'aalaha inaad weydiiso marka waxa weeyaan waa muhiim marka bartan waxyaabaha muhiimka ee doonaysa aad u baadho wax laga doonaya waa color-ka ama color theory-ga qaabka uu shaqeynayo typography-ga iyo fonts-ka iyo faruhu qaabka uu shaqeynayaan layout-ka qaabka loo sameeyo principle of graphic design qaabka uu shaqeynayo composition marka
qodobadaas dhan waxay ku habboon yihiin waa inaad qoraal ahaan aad u raadsataa videos waad helaysaa laakiin marka halkan la taagan yahay theory badan baa marka halkan kaaga soo baxnaanaya inaad aad u akhrido oo waxa weeyaan aad daraasado badan samayso colorska maxaa loo qaybiyaa siduu u shaqeeya colorada maxaa lagu xushaa imse category way qaybsanaanayaan faraha iyo fontsku maxay kala yihiin qaabkee loo doortaa fonts kasta halkee ku habboon tahay layout marka la sameynayo maxaa muhiima marka maadaama labadii step hore aad waxa weeyaan stepkan iyo stepkanba aad dadkii hore wixii ay sameynayeen oo aad sameynaysay laakiin markan waxaad isweydiinaysaa kalaradan muxuu qaatay kalarkan magicii kalarka suu shaqeynaya farahan muxuu kala saraysiiyey marka waa inaad more deeply aad samaysaa wax loo yaqaano wax akhrin badan waa inaad samaysaa waayo qodobka kale isagana waxa weeyaan muhiimka ah waxa weeyaan waa qodobka halka inoo yaala qodobkan wuxuu sheegaya marka waa inaad waxa weeyaan aad copy garayso practice only okay qodobkan wuxuu kuu dhigayaa koobiga marka aad samaynayso kaliya waxaad u isticmaalaysaa waa practical dad iyagu kale matalan loogaad qof ku aragtay uu sameeyey waa inaad samaysaa design baad ku aragtay qof sameeyey postera waa inaad samaysaa laakiin waxaad iska ilaalinaysaa ayo waxa weeyaan halkan aad yacni inaad xoog ugu baraarugsanaataa waa inaad waxa weeyaan aanad u isticmaalin weeg portfolio waxa weeyaan shaqooyinka aad qabsatay waa inaad ku darsan dadkii kale wixii aad ka koobiyeysay laakiin kaliya fikirka waxaad isku dayaysaa inaad dhisto oo aad ku dayato inaad samayn karayso si toolskaagii aad practical ugu samayso isla markaana waxa weeyaan hab fikirkaagii creativitygaaguna uu u kordho marka iska ilaali fadlan inaad dad kale designkoodii markaad koobiyeyso inaad ku darsato portfoliohaaga ama shaqooyinka aad qabsatay dhulto dadka aad tusayso inaad ku darsato iska ilaali taas markaa waa baraarujin waxaa kaloo iyadana stagekan muhiima waa inaad markaasi aad raadisa wax loo yaqaano feedback oo tusaale ahaan markaa haddaad mentor haysato haddaad haysato markaa macalin graphic designka haddaad haysato dad kale experience kale khibradda leh ku shaqeeya waa inaad markaa waxa weeyaan aad communitygaasi aad raadisaa oo aad su-aalo weydiisaa oo designskii aad soo koobiyeysay sidiisa aad u samaysaa tidhahdo maxaa iga qaldan maxaan qalday designka maan islaha koobiyey san baan u dhigay maxaa marka waa inaad feedback aad mar walba aad raadisaa waayahay learning by doing ba markaa noqonaysaa dad kale waxa weeyaan si aad markaa wax u barato dadka kale wixii ay sameeyeen waa inaad koobiyeysaa mar walba si markaasi waxa weeyaan ay yacni garaadkaaga uu dhisnaado tana haddaan soo koobo laba ujeeddo ayaynu ka leenahay labada ujeeddo noqonaysa waxa weeyaan kow mid waxa weeyaan waa toolskii ayaad practical ku samaynaysaa toolskii aad baratay Photoshop ama Adobe Illustrator ama InDesign marka looga soo qaatay shapes kala duwan ka kooban ee aad doonayso inaad si aad u samayso shapeskii Adobe Illustrator baad practical ku samaynaysaa software-kii baad wadwadaysaa jiijidaysaa iyo ciladaha ka hor imanaya wad xalinaysaa waxbaad waayaysaa qoraal markaad qorayso siduu weynaysa marka qodob koowaad ka caawinaya inaad practical samaysaa qodob kale wuxuu dhisay marka waxa weeyaan waa creativity-gaaga ayaa marka isagana waxa weeyaan uu kordhinaya way qodobka labaad markaa uu ka caawinaya waa in maskaxdaadu ay kordho waayo waxaad isweydiinaysaa qofkan labadan kalar muxuu qaatay yes laba kalar oo isku qurux badan weeyaan berri kamaan wax laga yaabaa labada kalar inaad in yar bedeshoodo ama laba kala mid kale intaad soo qaato laba kalar oo kale soo qaadan inaad samayso waxaad garanaysaa qofku muxuu ciwaankan u weyneeyey qoraalkan u yareeyey kuna uu waxa weeyaan u sii yareeyey waxaad ogaanaysaa waxa weeyaan qaabka kala sarreynta waxa weeyaan inay macno ku fadhido theory-giina markaad akhrido markaa wax badan baa kuu soo baxay marka levelkan loo yaqaano learning by copy studentigu markaa inay waxa weeyaan ay sameeyaan wuxuu kaa caawinaya markaa waxa weeyaan inaad fikro badan aad urursato haddii inta badan waxa weeyaan aad isku aragto cilad waxa weeyaan adigoo designskii softwareadii bartay Photoshop Adobe Illustrator design laakiin aan waxba aan samayn karahaynin stepkan ama levelkan ayaa markaa kaa dhiman inaad qaadaan ay muhiim tahay qaybta theory-gana aad akhridood barato qaybta dad kale ay sameeyeen inaad ku dayto oo aad sidiisa aad u samaysto waayahay levelka shanaad haddaynu markaa ka bilowno levelka shanaad isaga waxa weeyaan isagana waa muhiim levelka marka wuxuu ka sheekeynaya waxa weeyaan waa creative yacni waa think like creative yacni hadda waa xilliga lagaa doonay markaa inaad fikirto adigoo aan waxa weeyaan projectiskaad dhisaysa aan cid ku xidhnay marka level 5 wuxuu inoo dhigaya waxa weeyaan qodobo markaa wuxuu inoo sharxaya waxa weeyaan waa 5 qodoba ugu horeyn waa inaad create your own projects levelkii saddexaad maxay nidhi toolskii software-ka baratay levelkii afraad maxaa soo baratay dadkii kale baad practical garaysay copy garaysay isku daysay wax u sameynaya u samayso theory badan wada akhriday colorskii typography layout ku xaasna khuseeya marka waxaad sbidaysaa imika maskaxdaada in layouts fara badan baa ku jira aqoon hoose oo theory ku saabsanna waad leedahay hadda marka level 5 wuxuu ku leeyahay waa inaad markaasi waxa weeyaan aad samaysaa wax loo yaqaano practical waa inaad adigu projectska aad leedahay project qasab maaha shirkad intaad u tagto aad shaqo rasmi u qabatid waxaad markaa samaynaysaa social mediaha postero campaigns logooyin companies ka fake baad adigu aad samaynaysaa marka fake companies baad samaysanaysaa mesela waxaad leedahay markaa fake company
company markaa waxa weeyaan aan jirin ayaad loogadiisa iska abuuraysaa social media poster baad u samaynaysaa laba waxaa kaloo iyadana muhiima redesign weak design around you designerada designiska ama nashqadaha area aad joogto ama goobahaad ka dhowdahay ku hareeraysan hadday tahay markaa board aad meel ku aragtay hadday tahay waddadaas sii marayso billboard ku taagan hadday tahay shirkada aad garanayso loogooyinkooda baad waxaad isku dayaysaa markaa waxa weeyaan recreate redesign markaa inaad dib u design garayso marka loogo hebel waxa ka qaldan baad ogaatay waayo theory-gii baad in badan kusoo baratay loogadii baad isku dayaysaa markaa renew aad ku samayso billboardkiis baad isku dayaysaa inaad qaab kale u dhigto markaa shaqooyin adigoo markaa waxa research dabcan mar walba waa la sameeyaa oo Pinterest iyo dad kale designers qaabka u sameynayaan ka maarmi weyso research baa la sameeyaayo matalan hadda looga samayso waa inaad baadhaa si loogada yacni industry-gaas matalan haddaad caafimaad looga samaynayso waa inaad aad u baadhaa loogooyinka caafimaadka laakiin hadda ma koobiyeynaysid adaa fadhiisanaya qalin buug baad qaadanaysaa iska jima samaysa adaa from scratch ka bilaabaya designkii adaa computerka ka bilaabaya iyadood ka faa'iidaysanaysa curintii hore ee aad soo baratay iyo fikradii hore ee waxa weeye aad hore aad u soo baadhay marka designiska waxa weeyaan aad ka hooseeya marka waa inaad design garaysaa waxa kaloo iyadana muhiim marka waxa weeyaan inaad feedback aad markasta aad raadaysaa marka qof waxa weeyaan expert ah oo waxa weeyaan isleedahay ama oo kaaga yaraa aqoon badan yahay graphic design ama muddo ku jiray wixii aad design garaysay project ka shaqeyso markaasi waa inaad la wadaagtaa waxa kale iyadana muhiim waxa weeyaan marka inaad waxa weeyaan join aad ku samayso challengeska iyo competitorska aad ka qayb qaadato iyadana waxa weeyaan markaasi aad dadka aad waxa weeyaan maxaa loo yaqaanaayay aad la wadaagto wixii ay yacni meelaha lagu tartamayo oo dhan loogooyinka lagu sameynayo billboard marka waa inaad tartamadaas aad ka qayb gashaa ugu dambeyn marka waa inaad samaysay waxa loo yaqaano marka portfolio marka waxa weeyaan designiska aad samaysay marka waa inaad bedeshaa marka waxa weeyaan portfolio designiska marka aad adigu aad leedahay marka waa inaad waxa weeyaan aad ka samaysataa portfolio way si good waxaan projectga aad waa marka practical badan samaysaa adigoon cid ka koobiyeynahaynin waa inaad isku daynaad hal abuur cusub la iman karayso waa inaad eegi karaysaa eriyada kugu hareeraysan loogooyinka iyo designada iyo billboardada kugu hareeraysan inaad dib aad qaab kale aad u dhigi karayso waa inaad feedbacka aad la wadaagtaa dad markaa kaaga aqoon badan waa inaad markaa ka qayb gashaa tartamada iyo challengeska designerska khuseeya ama international ama localka doonaha noqdaan ugu dambeyn marka waa inaad dhisto waxa loo yaqaano portfolio waxa weeyaan waa shaqooyinka aad practicalka ku samaynaysa isku dayaysay feedbacka dadka markaad u gudubtay kaaga soo jawaabeen inaad markaa intaad meel ku ururiso aad markaa waxa weeyaan aad hadhowto dadka aad la wadaagi karaysaa levelkan iyo levelkan shaqada ka soo boodnay intaas intay qaadan karaysa levelkan qofka ku xidhnaanaysa waxa laga yaabaa markaa Allahumma salli ala Muhammad levelkan si aad markaa project rasmi aad u dhisi karayso waxa laga yaabaa markaa waxa weeyaan inay muddo ku qaadato marka muddadaasi muddo iyadu cayiman maaha oo waxa weeyaan tusaale ahaan waxaad oran karaysaa waayo adigoo shaqaysanaya oo projectkan qaar hadhow tolo dadka u qabanayo ka shaqeynaya maaha marka levelkan aad taagantahay marka levelkan inaad iska fadhido weli wax barashad ku jirtaa uma taagnin adigoo shaqaysanayo marka ama wax loo yaqaano freelancer ah oo lacag sameynaya oo marka posteradii iyo waxa kale sameynaya ama logo design ba sameynaya iyo wixii kale soo raaca bad haddana la doonaya inaad marka waxa weeyaan qodobadan aad sii xoojiso marka kan waxay qaadan karaysaa almost waxa laga yaabaa kan waa ilaa weligii laakiin muddada aad practical badan markaa samaynayso la odhan karayo waa muddo aad ku yacni kaalin geli karayso waxa laga yaabaa almost waa 6 months oo kale bay noqonaysaa marka qasamaa 6 months kana sugtide laakiin 6 bilood markaad maalinba project iska furaysay iska samaynaysa ee loogama soo qaadanaysay ee redesign ku sameynaysay ee waxa weeyaan dad kala duwan aad la wadaagaysay designadaada ee portfolio designayay muddo ilaa 6 bilood baa kugu filaanaysaa marka qodobka shanaad waa muhiim waxa weeyaan marka inaad isagana aad waxa weeyaan aad focus karayso inaad projectga adigu aad dhisi karaysaa waxaan halkan ka soo boodnay haddana markaa isagana aynu cayino muddada aad wax koobiyanaysaa intee qaadan karaysaa almost isagana 6 to 3 waxa la yiraahdaa 3 bilood ilaa 6 bilood baa kugu filan inaad koobi karaysid theory badan aad akhridid waxa weeyaan dadkii hore designerska wixii ay sameeyeen inaad markaas waxa aad dib aad u samayso marka waxaa la yiraahdaa 3 to 6 months iyadoo ku xidhantay markaa qofku hadba joodiga uu geliyo iyadoo ku xidhan tahay waayahay marka level 5 haddaynu markaa waxa weeyaan in yar dul istaagno inta ugu muhiimsan bay noqonaysaa saddexdan level xiriir ka dhaxaynaya waxa weeyaan ay muhiimka waxa weeyaan ugu horeyn markan toolska waa baratay toolska oo noqonaya kuwii shaqada lagu qabanayay toolskii si fiican baad u soo fahantay deedna markan waxa weeyaan qaabkii markaa practical loogu sameynayay ay dadka creativity-ga leeyihiin ama qaabkii toolskan loogu waxa weeyaan ama doing wax loo yaqaan markaa sameynaysaa waxaad markan baratay waxa weeyaan toolskii aad baratay si fiican u baratay seeba actionable loogu bedeli karaya qaar project rasmi soo saari karaya
qaybtan shanaad iyadana markaa waxa kadib waxa weyn noqonaysa markaa creativity-gaaga badisaysaa markaa qof ima creative oo hal abuur isagoo curin karaya ayaad markaasi waxa weeyaan aad doonaysa ayaad markaa aad practical garanaysaa marka way isku xidhan yihiin oo toolska markaa si fiican u farato waxa kuu fududaanaysa inaad dad kale waxa ay sameeyeen aad si fudud aad waxa weeyaan markaa aad u samayn karayso dad kale waxa ay sameeyeen tiriga markaa si fiican aad u akhrido ee aad u sameysay ugu daba sameysay practical badan samayso waxa kuu fududaanaysa markaa creativity-gaaga markaa inuu kordho oo shay cusub adigu aad hal abuuri karayso marka saddexdaasi waa saddexdan oran karayo waxa weeyaan waa saddexda ay u dhimatay ee waxa weeyaan Allahumma salli ala Muhammad ay muhiim ka tahay qofku markaa inuu xooga u saara saddexdaasi area xitaa qofku hadii markaa hore uu graphic design-ka uu soo bartay waayahay aynu ka gudubno waxaan tegaynaa markaa level 6 level 6 haddii aan tagno markaa kadib graphic design-kii waa soo guda gashay saddexdii software ee muhiimka ahaa baad baratay hadda markaa graphic design-ku intaa kuma istaago waayo graphic design cilmigu waa aad buu bad u yahay waana muddo aad u dheerna uu u baahan yahay barashadiisu laakiin leefalay kala leedahay waxa laga mar adigoo shaqaynaya oo khibrad leh oo suuqi waxa weeyaan dhaqaale ka sameynaya ayaad markaa skillska kale aad baran karaysaa saddexda skill ee Photoshop Adobe Illustrator iyo InDesign haddaad hore u baratay oo levelska inaad ku soo fahantay deedna aad waxa weeyaan iyagana aad dadka kale wixii saddexdii aynu ka warramay aad si fiican u soo fahantay si fiican baad markaa suuqa ugu shaqo tagaysaa lacag fiicanna waa samayn karaysaa levelka laakiin markaa ka soo gudubto waxa laga doonayaa inaad haddana aad sii go'aansato wadada aad sii raaci lahayd specialization aad sii noqoto yani area cayiman inaad sii doorto si lagugu yaqaano markaa waa inaad qaato marka areooyinka way badan yihiin areada markaa mid ama laba areada waxaad dooran kartaa markaa inaad isku badaysa maaha marka hore weliba aad bilowga aad tahay marka waxaa kaa badan marka ugu horeysa waxaa leeyahay markaa hal ama laba skill oo kuwana markaa waxa weeyaan ayaad sii focus garan karaysaa waaye kun hadda maxay yihiin haddaynu markaa sharaxaad guud ku samayno ugu horreyn waxaad ku takhasusi kartaa ood xoogga saari kartaa waxa loo yaqaano brandingka ama visual identity-ga waa shay suuqa waxa weeyaan qiimo fiican ka goynaya lacag fiican laga qaado shayada ugu muhiimsan ee markaa la barta waxaa ka mid a ugu horreynaya waxa weeyaan waxa loo yaqaano waa logo and brand guideline marka inaad qaybtaasi aad ku takhasustood xoogga saarto waa wado ku furan oo markaa qof loogooyinka aad expert ku noqonaya aad noqoto qodobka labaad waxa weeyaan haddii aad tahay markaa waxa weeyaan developers qof markaa inta badan xiisaynaya in waxa weeyaan markaa developers ama web designingkii ama mobile application developmentkii ama software develop gareeya hadduu doonayo qofkaasi markaa waxa weeyaan waa inuu markaa waxa weeyaan uu bartaa uu raaca wadada loo yaqaano UI UX user interface user experience waa cilmi kamida graphic design-ka oo isagana si deeply la doonayo qofku inuu specialization hadduu doonayo inuu markaa uu sii qaato branding waan ka soo boodayay isaga anyway tools cusub uma baahnid Adobe Illustrator InDesign Photoshop saddexdaas muhiima khaasatan markan logo design-ka waxa uu muhiimo software-ka loo yaqaano Adobe Illustrator AI ayaa markaa isaga uu muhiima marka isaga saddexdan hore inuu soo qaadno foundation-keeda oo reer ku fiicneeday marka dambe waxa sii daraasaynaysa logo design-ka iyo visual qaabka yani visual identity ba sii daraasaynaysa iyo theory-ga iyo practical-ka khuseeyo ba sii badinaysa laakiin tools cusub uma baahnaanaysid laakiin hadda doonayso UI UX oo developers in mustaqbalka aad noqoto ama aad la shaqeyso aad doonayso software-ka ugu muhiimsan ee laga doonayo marka waxa weeyaan software loo yaqaano Figma Adobe XD baa jira Adobe XD shirkadda Adobe iskale laakiin Figma waa software-ka ugu weyn ee suuqa haysta saddexdan software Sketch isaga Mago kaliya uu yahay marka uu xadidan yahay Mago kaliya marka loo isticmaalaa marka isaga inta badan waxa weeyaan isaga uu iska ignore garanayna laakiin software-ka isaga loo yaqaano Adobe XD-na shirkadda Adobe iskale laakiin suuqiisu waa uu ka yar yahay marka loo marka software-ka kaliya kula talinaya waxa weeyaan kuwan kale waa iska baran kartaa software-ka loo yaqaano Figma marka doonayso UI UX kana sii barato waayahay motion graphic-ga waad qaadan karaysaa wado kale oo isagana aad mari karayso motion graphic marka waxa kamid ah marka waa animations inaad samayso waxa weeyaa marka telling story ama waxa weeyaan sheeko abuurka aad samayso adigoo isticmaalaya marka animation motion graphic waa in marka waxa weeyaan cilmiga aad gooni u sii barataa cilmigan software marka badan buu isaga laftiisa doonaya waa cilmi runtii aad u ballaaran software-da ugu muhiimsan waa software loo yaqaan AI After Effects waa software-ka ugu muhiimsan Premiere Pro waa software kale soo raaca labadaas waa labada ugu muhiimsan mid kale waxa jira software kale isagana aad u culus oo loo yaqaan DaVinci Resolve oo isagu software fara badan buu koobsanaya Photoshop waxaan jeedaa Premiere Pro After Effects Adobe Audition Media Encoder afartaas software oo shirkadda leedahay Adobe ay leedahay isagu koobsanaya laakiin waa software kale isagu ka madax bannaan oo shirkad kale ay soo saarto laakiin
waxaan kula talinaya maadaama Photoshop iyo Adobe Illustrator iyo InDesign soo qaatay inaad xoogga saarto Adobe After Effects, Premiere Pro iyo software kale loo yaqaan Adobe Audition AU oo isagana codka loogu talagalay marka software toolskaasi waa inaad bartaa marka aad barato adoo markaa hore graphic design ku shaqaysanayay motion graphic hadana oo sidoo lacag marka ardayda inta badan qalaadka sameeyo waxa kamid ah qofkii wuxuu doonaya isagoo professional graphic designer aan noqon oo Photoshop iyo Adobe Illustrator aan si fiican u soo fahmin inuu motion graphic ku boodo baa dhacda deedna xaggaasi waxa weeyaan deedna hadhow tole marka waayo motion graphic haddaan designer buuxa aan ahayn oo coloradaas qaadanay typographiga waxaasna haddaan garanaynin way adagtahay marka inaad waxa weeyaan aad noqoto motion graphic professional marka waxa muhiim ah inaad marka software hore aad soo barato inaad marka toolska Photoshop Adobe Illustrator aad soo qaadatay After Effects iyo Premiere Pro iyo Adobe Audition inaad raaciso haddii kale DaVinci Resolve gooni ayaad marka isaga aad u baran karaysaa waayay software inta ku sii raacaya software oo dhan skill kale ama wadada kale sii qaadan karaysa waxa weeyaan skillka loo yaqaano 3D design 3D design ku inta badan waxa weeyaan isaga software marka wuxuu u baahdaa loo yaqaano Blender iyo Cinema 4D marka inta badan qofka game developers oo kale ama 3D animations oo kale ama movies oo kale ayaa inta badan isagana qaata isaguna waa qayb kamid ah graphic design ka oo sii hoos galay marka 3D designer baad noqon karaysaa hadda doonto hadda tula aakhirka waxa tigaysaa marka interior 3D designer baa sii noqon karaysaa marka isagana waa cilmi aad gooni u baran karayso walow isaga suuqiisu aanu imika inaga aad noogu badnayn marka loo eego brandingka iyo motion graphic UI UX kana imika dadku soo fahmayaan waxaa kaloo markaa isagana inoo soo raacaya softwareka wadada kale loo yaqaano markaa printing and packaging kan isaga tool cusub kaagama baahna printing and packagingku waayo hore softwareda Adobe Illustrator iyo InDesign buu baahan yahay Photoshop laftiisa uu baahnanaya horaad ka u taqaanay marka doonaysaa la shaqeysa daabacadaha saddex software kaaga baahan yihiin waa Photoshop Adobe Illustrator iyo InDesign iyagana marka wada aad raaci karayso haddii aad leedahay suuqa daabacadu aad buu balaaran yahay waayo waxa weeyaan shaqooyin badan baa ka soo baxa marka toos baad u targetinaysaa tool cusubna kaagama baahnanaya social media isaga waxa weeyaan marka Photoshop Adobe Illustrator iyo Canva iyo Adobe Express Canva iyo marka doona iyaga waxa yihiin oo iyaguna waa designs laakiin Photoshop Adobe Illustrator kana isagana waxa weeyaan kaagama baahnanaya waxoogana social media marketing aad barato campaigns qaabka loo qaado meta business waxa uu yahay qaabka curinta loo sameeyo content creation ka loo abuuro hawlahaasi ay marka waxa weeyaan uu ku qaadanaya wadooyinkan wada waliba waqti bay marka u baahan tahay laakiin waqtigay u baahan tahay waqti ka hor istaagaya maaha inaad waxa weeyaan aad lacag samaysaa adigoo shaqaystay skill leh oo xirfadii suuqa ku jira baa waxa weeyaan marka qodobadan aad iyagana wada kamid aad qaadi kartaa mid ama laba wada qaadi ama saddex afar wax waad ku dari karaysaa laakiin marka ugu horeysa mid ka bilowda taa tusaale marka ka takhasusto baad kuwa kale marka aad raadsan karaysaa marka levelka lixaad waa levelka loo yaqaano maxaa loo yaqaanaayay inaad markaa doorato wadada rasmiga ah ee mustaqbalka aad doonaysaa ku sii shaqeyso markii hore si general ama medicine guud caafimaad guud baa baratay laakiin marka waxa weeyaan dhakhtarka wadnaha kaliyaha waxa weeyaan uu ku jirta ayaad sii noqon specific baa sii dooranaysaa level 7 haddii guud gallo marka isagana waxa weeyaan aad wuxuu kaaga caawinaya marka level 7 wuxuu ku siinayaa ama uu leeyahay designskii iyo markaad wadadii aad soo doorato ee waxa weeyaan aad garanayso meeshaad u jihaysan tahay marka kadib waa inaad marka waxa weeyaan aad samaysaa barashada wax loo yaqaan AIs artificial intelligence-gu suuqii designka wax weyn bay ku soo kordhiyeen dabcan may bedelin kamana saari karaan suuqa laakiin waxa weeyaan wax weyn bay ku soo kordhiyeen marka taas maadaama ku soo kordhiyeen waa inaad la qabsan karaysaa haddana suuqa la qabsan ee ayada waxa laga markaa in laga design fiicnaado in waxa weeyaan aad noqoto all version noqoto marka suuqii adigu aad waxa weeyaan aad ka hadha ayaa dhici karaysa marka ChatGPT oo kale muxuu ka caawinayaa waxyaabo ugu muhiimsan waxa weeyaan marka tusaale content creation oo kale waa content creation tusaale ahaan inaad marka brainstorming idea inaad brainstorm garayso inaad proposalski iyo dadku wixii aad u qorayso aad ku baaliso fikrada inaad weydiiso xitaa colorska iyo typographiga iyo qaabka waxa doonaysa selectionka aad u sameynayso laftiisa waa ka caawin karaya Midjourney iyo Firefly iyo Dali marka isaga ChatGPT buu kamid yahay marka uu ready marka isagu ku dhex jira kuwan waxa ka caawin marka weeyaan waa inaad marka image generator inaad sawiro AI ama artificial intelligence inay ku generate gareeyaan oo design ka sameynayso sawirada aad galayso birka hore dhibtu waxay dadka kaga iman jireysay inay maxaa loo yaqaanaayay design sawiro ku haboon raadsadaan qaarkood eBay haayeen qaar low quality baan laakiin AI waxa ka caawinayaan sawir high quality inay ku generate gareeyaan oo cid kugu qabsanahaynin marka waa inaad la qabsataa iyagana AI-yada kuwa loo yaqaan Midjourney iyo Firefly waa inaad markaa sii barataa waxa kaloo markaas igana jira Canva iyo Adobe Express waa laba platform oo isku mid ah marka iyaga wax loogu talagalay waa basic designs waxa lagu jeedaa designada yar degdega ah
ayay aad ugu fiican yihiin oo tusaale ahaan khaasan social media dadka maamulo oo kale ama social media dhisanadeedu haddaad doonayso intaad photoshop soo furan lahayd eed wadwadi lahayd iyo waqti badan kaa lumi lahaa Adobe Express Canva ka weyn markaa Canva aad suuqa ugu jirta laakiin shirkadda Adobe Express maadaama softwareadeedan waaweyn dad badan barashadoodu ay ku adkaanayso waxay markaa ay kula tartantaa software loo yaqaan Adobe markaa Express laakiin kan kula talinaya waa Canva inaad barato Canva عشر دمايسترن أو كراش كورسين كسبنا نبرتني يوتيوب كاتك قرطون كاس سيدا كتمي كانفا تقرطوا وتكيلسا كانفا أما روبك إسبرس حكا عاونا يا إن هذا حويان أد قرشياش مثلا ويك نان سوشيال ميديا وحد كنا صادنا هالمرة ديارسو أنيميشنز كومبو كعاونية تمبليت فرا بدن بكوتشرة سوشيال ميديا سيس فرا بدن بكوتشرة فوتوشوب يدور روحي وقت بدن كقاعدن لها كون وحويان مركب وحويان وكويك مركب وحويان سيدك دقة أي مركب وحويان maxaa loo yaqaanaa ayay designskii adigu hal abuursa marka iyagana waa in la qabsataa oo toolska degdega ah aad in badan iyagana waxa weeyaan markaad u baahan tahay isticmaasha level 7 isagana taas oo kaga soo baxayna laba level kaliya inoo soo haray level 8 iyo 9 iyo ugu dambeyn waxa weeyaan tips in kugu soo gabagabeynino level 8 ka marka hadan furo isaga waxa weey marka kadib waa inaad u fikirtaa marka qaab business markaasi waa inaad u fikirtaa marka qodobka wuxuu ka sheekeynaa waxa weeyaan waa become a professionalism waa marka imika waxa isku arkaysaa level 8 ka marka taagan tahay waa qof professional oo waayo wuxuu skills ka dhan uu soo yeeshay wuxuu isla markaa soo doortay pathkii uu raaci lahaa marka waa motion graphic ama waa branding ku takhasusay ama imka qofkan halkan la hadlaynaa level 8 inuu soo gaaray waa qof aad u professional qofka professionalka design ka khibrad fiican iyo wax walba u soo yeeshay waxa laga doonayaa marka inuu hadaba imika hab business ama professional waa inuu u fikiraa marka waa inaad barato waxa loo yaqaan time management marka haday tahay waxa weeyaan time management kaaga inaad marka waxa weeyaan aad u samayso waxa loo yaqaano tusaale ahaan aad markaa samayso waxa loo yaqaano block time inaad time kaaga maamuli karayso to do list inaad isticmaali karayso inaad markaa waxa weeyaan project management wixii kale soo raacaya time kaaga ku maamulayso inaad isticmaasho communication inaad waxa weeyaan habka dadka waxa markaa soft skillski waxa loo yaqaanay soft skillski marka waxa weeyaan habka dadka by emails qaabka loo qorayo habka waxa weeyaan by call loogu hadlayo marka waa si fiican u baahataa negotiation iyo pricing ka wanaag sameyn kartaa qiimayaashii qofka waayo shay qof waa apply garanaysa wax iska oranayno qiimahan waa qaali looga tirada waxaan ku sameynaya 4,000 ama 5,000 ama 6,000 waxaan qiimahan macquul ma aha waxaan soo qorto waayo suuqa laga waramaya waxa weeyaan $100 $200 ku san adna 5,000 baad ka sheegaysaa $200 buu ku haysta marka habka negotiation ka loo sameynayo pricing ka loo sameynayo iyadana waa inaad barataa proposals iyo contracts ku aad bay muhiim u yihiin waayo any business marka businessyada iyo hay'adaha iyo NGOs-ka iyo businessyada aad doonaysan la deal garayso iyaguna waxa weeyaan waa inaad proposal dhammaystiran oo project ku soo jeedi karaya waa inaad qori karaysaa waa inaad garan karaysaa qofka macmiilka ah maxaa deliver garanaysaa maxaa finalka qaybkeed standard waxa weeyaan aad wax u deliver garanaysaa waa inaad garaysaa marka project management aad haysataa waa inaad waxa weeyaan marka aad garanaysaa waa finance marka sidii basic invoice-ka quotation-ka waxa weeyaan receipt-ka waxa loo yaqaano budget-ka qaabka loo sameeyo marka waxa weeyaan isagana waa inaad wixii lacag ama finance khuseeyo dhan waa inaad barataa oo taqaanaa networking waxa weeyaan iyo maxaa loo yaqaan marka waa inaad professional connections aad abuurtaa oo dadka iyo connectionska waxa weeyaan aad ka faa'iideysaa isla markaa aad noqotaa qof dhisaya waxa weeyaan marka connections marka qodobka levelka waxa weeyaan aanu yimaaday sideedaad wuxuu ka sheekeynaya marka u fikirto hab professional waa design-kii iyo xaaladahaasi waynu ka soo gudubnay marka level 8 san qodobkaas uu sheegaya level 9 marka isaga waxa muhiim ah inaad signaad ku baraarugsanaataa xirfadda loo yaqaan graphic design-ku ma xirfad meel ku eeg oo marka inta aad soo dhamayso aad waxa weeyaan aad ka farxalanayso waa inaad ku dadaashaa inaad la qabsato waxa loo yaqaano marka trendiska cusub ee sanadka la marayo marka design trendiska cusub ee kolba soo baxa iyo habka wax loo design gareynayo toolska cusub ee marka soo kordha ee software cusub haday yihiin waa la qabsan karaysaa qaar hore jira xitaa haday imka soo graphic design waxaan soo aragnay Photoshop Adobe Illustrator soo aragnay waxa jira Photoshopka iyo Adobe Illustrator hal software oo koobsanaya oo loo yaqaano Affinity Designer software loo yaqaan baa jira marka hore isna 10 lagu sameeyay Affinity Designer-ku waa software waxa weeyaan Photoshop iyo Adobe Illustrator labadii isku jira Premiere Pro iyo After Effects iyo Adobe Audition soo aragnay DaVinci Resolve software-ka inoo aragnay baa isagana kamid ah marka tools kala duwan iyo trendiska la marayo marka waa inaad wax weey la jaan qaadaa qodobka labaad marka wuxuu ku leeyahay waxa weeye marka waa inaad ka shaqeysaa personal project adigu aad leedahay kaasoo ku xiisay gelinaya marka waa inaad focus gareysaa
qodobka saddexaad markaa waa inaad inta badan community-ga flowers aad u noqotaa ood ku xidhnaataa ka sheekaynaya ama community designerska si markaa ay ku motivate garayaan xilliyada waxa weeyaan low motivationska aad tahay afar waa inaad markaa aad seexataa exercise-na aad waxa weeyaan aad samaysaa si markaa waxa weeyaan yacni energy-ga shidaalkaaga uu dib u soo noqon karayo waa inaad markaa haddaad u baahato xaaladaasi waa xaalad muhiima haddii markaa aad u baahato waxa weeyaan inaad maxaa loo yaqaanaayey aad bows garayso maaha inaad ka tagto shaqada graphic design iska wada nacdo iska dayso marnaba maaha wax weeyaan muhiim laakiin waa mararka qaar waxa weeyaan aad u dareento culays badan marka kugu dhaco inaad yaro joojin karto fiilal kale aad focus garayn karayso marka tani waa qodobada marka burnoutska ama niyad jabka ama waxa weeyaan culayska iyo stresska iyo waxa weeyaan hawlaha shaqe ee graphica ama fiilkan uu leeyahay aad la kulanto qodobadan marka waa inaad waxa weeyaan aad raacdaa short break qaado soo yara naso magaalada ka bax environmentkaaga bedelo caafimaadkaaga focus garee project adigu aad leedahay ood ku faraxsan tahay ka shaqe inaad community-ga ku xidhno si ay ku motivate gareeyaan seexo hurdo kugu filan exercise-na samee ugu dambeyn haddaad u aragti intaas inay soo baarismi waayeen yaro jooji guud ahaanba fiilkan oo wax kale focus garee kadib laakiin kusoo noqo marnaba ha ka soo bixin si guud casharkeenna inahaasaan kusoo koobaynaa waana 9 tallaabo ee qofka waxa weeyaan uu marayo iyo qodobka ugu dambeeya noqonaysa qofka waxa weeyaan inuu markaas waxa weeyaan uu kula dagaalamo niyad jabka iyo depressionka iyo stresska xaaladda ay gelinayso qodobadan oo dhan marka waxa imanaysa qofku muddo ayuu u baahan yahay marka levels kan inuu ka gudbo level kasta marka gooni buu kugu sii dhiibaya waxa weeyaan levelka ku xiga ilaa marka ugu dambaysa aad noqoto fiilka from marka soo gasho to professional aad ku noqoto ilaa halka uga sii baxaysay waxa weeyaan marka dambe aad ku hamido inaad creative agency aad samaysato ama founder aad noqoto ama waxa weeyaan qof strategy iyo hawlahaas ka shaqeyn ama projectkeeda waaweyn designku qasama hadda kuma xidhna dunida content jir lixan jir bad arkaysaa fiilka graphic designka aad waxa weeyaan ugu takhasusay laakiin fiil mar walba inaad u gacantaad ka wado aad u baahan tahay maaha marka team baad samaysanaysaa deedna waxa weeyaan hawlihii waaweynaa ayaad qabanaysaa si guud roadmapkan waa roadmap ka caawinaya inaad from below beginner to professional aad waxa weeyaan aad noqotaa waxaan kusoo gabagabeynayaa fiilkan guud ahaantiisa xagga timeka mid walba intii hore timeka u baahnayd waan soo saarnay khaasatan qaybta la focus garanaya technicalka ah laakiin haddaynu si guud oo kale aynu timingka guud ee qofku finalka intee ku qaadanaysa haddaynu summary guud ka samayno si guud waxa loo yaqaano inaad marka waxaan ku soo qaadnay waxa weeyaan tusaale ahaan time ay waxa weeyaan tusaale ahaan ay ku qaadanayso ugu horeyn waxaan ka dhigayaa qofku intuu fiilkan intuu ku soo galo uu shaqo ku abuuran karaa freelancer ku noqon karaya shaqooyinka gaagaaban ee basiga uu ku qaban karaya muddadan way muddayn karaynaa qofkaas wuxuu u baahan yahay from sida markaa realistic ku base garaysan isagoo ku xidhanta qofka markaa waqtigiisa waxaa laga yaabaa markaa 4 months ilaa iyo 8 months inta u dhaxaysa qofkay markaa ku xidhan tahay qofka aad u dadaalaya ee waqti haysta ee software-da bilaabaya ee marka hore yara bilaawsan yihiin just 4 months xitaa 3 bilood waa ku geli karaya laakiin 4 bilood waa inta qiimeynta caadiga ah ilaa iyo 8 bilood qofka dee lazyga sanad ku qaadan karayso ma sheegin kaasu markaa waa fiilka qaybtiisa koowaad ee inaad soo gasho barato si fiican u dhex mushaaxdo isla markaana aad shaqooyin aad ku raasan karayso markaa levelkii aan soo gaarnay noqonayo level waxa weeyaan 5 kiya inaad waxa weeyaan aad muddayn taaleg 4 bilood ilaa 8 bilood ay kugu qaadanaysaa levelka labaad ee noqonaya waxa weeyaan more professional inaad noqoto qof dhaqaale fiican ka samaynayo projectkeeda waaweyn oo kaliya waxa weeyaan focus gareynayo oo waxa weeyaan lacag weyn ka samaynaya kaas markaa wuxuu ka bilaabmay wixii ka bilaabmay markaa waa 2 years kadib 2 sano markaad fiilkan ku jirto ilaa iyo aad ku jirto matalan 5 to 7 years baa la yidhaahdaa ilaa 7 years aan idhaahdo muddada qof ku jira tusaalaanta 7 years aad ku jirto fiilkan aad ugu jirto waxa laga yaabaa markaa projectyo waaweyn iyo lacag badan aad ka qaadato 2 sano waxa laga yaabaa markaa lacag xoogaayo ka badan intii hore qofka 8 bilood ku soo jira ka qaadanayso tusaale ahaan si kooban soo dhigo matalan qofka logo design ka sameynaya fiilka bilowga ilaa 8 bilood ku guda jira waxa laga yaabaa $100 200 ku sameeyo laakiin qofka 2 years 5 years 7 years ku jira waxa laga yaabaa markaa lacag badan uu qaado 3,000 4,000 markaa muddada aad doonayso inaad as expert aad ku noqotaa oo fiilkan lacag badan qaado khibrad badan aad u yeelato waxay ku xidhantahay markaa waxa weeyaan 2 bilood 2 sano waxoogaa kaga bilaabma 3 sano 5 sano 7 sano 10 sano markaa saad u sii socoto laakiin qof waxa la 2 ilaa 7 sano wuxuu leeyahay khibrad waxoogaa ayuu leeyahay qofka 2 sano graphic design ku jiray aqoon fiican buu leeyahay
laakiin waxa ka sii badinaya 3 sano 4 sano 5 sano 7 sano ilaa 10 sano 20 sano doonto wad marka mar kasta laakiin muddada qofku lacag fiican ku sameyn karayo fiilkana la oran karayo inuu aad buu qofkaas u dhex galay waa inta ka dhaxaysa marka 2 sano wixii ka weyn ayaa marka la oran karaya qofkaasi fiilka more professional ayuu ku siiyay qofka sanadii wax ku jira sanadii bar ku jira la banayo waa professional aqoonta doonto soo baro laakiin 3 sanaad ku jirto 5 sanaad ku jirto professional baa tahay way haddaba qodobka saddexaad isagana muhiimka ah wuxuu noqonayaa goormaad ka fikiri karaysaa waxa loo yaqaano in maxaa la yidhaahdaaye aad inaad noqoto ama CEO ama founder ama business strategiyada ka shaqeeya qaybta matalan designka qaybta strategiyada ka shaqeynaya inta badan wixii 7 years xagga ka xiga 7 years plus wixii xagga ka xiga markaad ku jirto fiilkan waxaad noqon kartaa qof istiraatiijiyadaha ka shaqeeya qof waxa weeye markaa managers levels gaadho waxa weeye fiilkan manager ka noqda qof markaa waxa noqon karaysa waxa weeye founder iyo CEO noqon karaya marka wixii 7 sano fiilku jirta xagaaga sii kacdo ayaa ku fiicantay markaa hawlahaasi waaweyn aad ka shaqeyso waxa ku diidaya ma jirada adiga laftaadu matalan adigoo mararka qaar ku jira 2 3 4 5 sano ilaa 7 sano fiilka adigoo markaa section ka ku jira waxa laga yaabaa markaa xilligaas aad noqon karayso freelancer ama basic maamuli karaya business yar sad upgrade karaya oo isagana creative agency waa sameyn karaysa laakiin markasta waxa ku fiican tahay the more 7 years wixii ka sii sareeyay markaad ku guda jirto waxaad baranaysaa waxa weeyaan deeply waxaad dhisi karaysaa markaa waxa weeyaan fiilkan ama creative agency-gan oo dad badan waxa weeyaan ay aaminayaan baad dhisi karaysaa marka kan waa iska drive qofka ku xidhnaanaysaa laakiin cilmiga qofku inuu sidiisa u soo galo oo barto oo waxa weeyaan muddada ku filani 4 bilood ilaa 8 bilood weeyaan muddada oo lacag fiican ka sameyn karo marka ama freelancer kaga shaqeeya ama business yar oo start up ha sameeyay ee fiilkada professional ku noqon karaya waa 2 sano wixii ka sii xagga xiga ilaa 7 sano muddada uu markaa uu founder ama CEO ama lacag waaweyn ka sii shaqeyn karaya fiilkana waa wixii 7 sano xagga ka soo xiga marka guud ahaan roadmap-ka intaas ku soo gabagabeynayna sagaalka level ayaan markaa qofka waxa weeyaan fiilka doonaya inuu ka gungaara oo maraya waxaan rajaynayaa markaa waxa weeyaa videoga inaad waxa weeyaan si fiican aad uga fahantay roadmap-ka saxda ah ayaad u baahan tahay qofka doonaya inuu graphic design-ka uu heer ka gaaro from below ilaa waxa weeyaan inuu markaa meel sare uu ka gaaro fiilkani khaasatan qaybta xoogaa saari doonto waxaa ka mid ah markaa qaybta loo yaqaano 3 level inaad toolska muhiimka ah barato inaad waxa weeyaan dad kale waxa weeyaan aad koobiyeyso inaad markaa curintaada aad waxa weeyaan aad xoog uga shaqeyso saddexdaas waa ubuucda wixii intaa ka dambeeya markaad graphic design-ka intaas aad fariisiso wixii intaa ka dambeeya waa as the professionalism level baad u sii gudbaysaa marka videogeenan oo runtii aynu aad u dheeraysiinay intaas ku soo gabagabeynayna fadlan waxaan kaa codsanayaa haddaad videoga waxa weeyaan aad like garee soo kaleto subscribe ta saar si markaasi uu dad badan u gaadho aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu